marka saaxiib caqabadaha ugu waaweyn nolosha iska wajiyay hadda aanu burito dhakhtar baan ballan leh maanta haddii ay dhacdo xataa oo ilaahay igu qiinaysto oo lacagta aan helo oo aan qalin waa keligii qof inuu heliyo haba yaraatee ma jirto warqadda la igu qalayo haddii aan xataa la iska saxiixay inaad garanaysid baan u malaynayaa qofka markuu qalin gelayo warqadda laga saxiixay yacni haddii qofkaasi dhinto inaan loo haysto يا عصب يا عصب كوينتي إذا عصب إليها كشرفه شرفي كرامه warqadaas waxay jirta wax loo saxiixaa qofku hadduu dhinto inaan loo qabsanaynin moogtahay qof iga saxiixaya ma jirta anaa gacantiisa ku saxiixaya haddii lacalla xataa aan ku dhinto inaan cidna isku haysan يعني متخنا وهل كان تاجنا يعني مش وجوده يعني ما only one تلقي بقى فاهم مركز صاحب يعني هو وين نوش وحكمتها عقبالها دروسها درنس تكمت فاهم مركز صاحب أقول إنه يفرق أما نوش experience إن كارنك فاهم midka saaxay qof kasta oo dhalinyaro ah ama ila mid ah ilaahay waxaan uga baryayaa inaan mid ku dhicin caafimaadkiisa ku noolaado inta ay mid ku dhacday ama wax gaareenna inay caafimaadaan saaxay oo ilaahay caafiyo si ay noloshooda iyo naftooda u maarayaan wallaahi iyo bilaahi iyo tullaahi hooyada iyo aabbaha ama walaalkaa waxaan ka ahay inta kale waxba kuguma soo kordhinayaa nolosha waayo kan walaalkaa aan umadiba ah qof keligii ah ka walaalka uu ku damqanayo jirka ku taliyo hooyadana meelkaaga ka yimayso aabahana meelkaaga ka yimaado in dadka kale damqashada iyo naxariista amale laana sababta aad kumana aysan dalin kulamana aysan dalan ummadda markay jiirku markay saaxay nolosha caqabadaha ugu waaweyn bay kamid tahay aniga Soomaali oo dhan baa la dhaafay idinkoo dhan baa walaala ah saaxay mudnaanta koowaad الله اسكال marka labaad saaxiibadii aan ku mahadnaqayaa hadi aad baan u mahadsantahay ilaahay wallahi ilma ka taliya waxaan ku weydiinaa maadaama Malaysia joogto dhalinyaro waxaa jirta Malaysia ka dhisan oo media isticmaasho team 27 aadaan in team ka dhisan maadaama kaliya deegaanka dhalinyarada meesha joogta ma la xiriirtay bal aydan akhbaar naga sii iyo may wallahi ismaan arkin dhalinyarada ma fahanti oo batqana waxaan u maleeyaa waxaan is aragnay si kaliya khayr Allah siiyo ninka dhalinyarada aan dhalinyarada aad u qalbi wanaagsan laakiin marka la ismaan laakiin waxa laga yaabaa inuu iska mashquulo qof kasta noloshiisa baa la faaciyay YouTube iyo profile ka saaran ma ku saaxiib share oo igu sameeyay TikTok muuqaalada la duubay saaro diisayay hadi aad u mahadsanyahay ninka dhalinyarada ah laakiin waxa rajayay saaxiibeen 4500 baa in ay ku raayay booqataan marka intaas aan is aragnay galab baan is aragnay muuqaal baan la duubay isla muuqaal baa duubay saaro diisayay dib u sumaanaan arkay oo qoftan dhalinyaro noloshiisa la daala dhacay وده بتقارن نوشة كلا يكير والله أنت هذا الدجاج بيلدينج ما ضعفه لأن صوته إذا راح مع كان وأنا أما بختار كتست مركها هذا وبختار كان هذا ومركز عن تكسي راح عن بليرة يمكن إنه تجوا عن أصبعنا أما أنا مركز صونا ويقول لي أجوا مال وما ضعفه مركز أحد ريال آدي أبوي سنتين يعني إن شاء الله بإذن الله الكريم. هني بالآدم كان أدونك عن الشمال حتى أصلا تاي مس قرابة حكاية في عنان كان عندك برنامج كه. في عين أنا كل بعض وهي صوت عمل له كات صونين بل يرى صاحبها هاي وأنا نسوا قبيلة هاي نسوا هاي ولكن دكسي مصرية أصلا من بل يرى مصلحة من كان بل يرى waxaan u maleynayaa 6 bilood oo kamid ah noloshayda oo waqtigii igu adkaa uu dul taagnaa oo aanu meel iga dhaqaaqin sababtoo
iyadoo nolosha iska adkayd oo waqtigaas mataqaanaa waqtigii marxaladii nolosha ugu adkaaya marka waxaad laga yaabaa dadkaaga ka weyda dadka adiga xigaalkaaga aad ka weyd bad saaxiibkaa ka heshaa ama ehelkaaga qof kale aad ka heshaa marka ani hadda maanta halkan aan joogo iyo bartan aan joogo maanta niman dhalinyaro nan de waxba aanan saaxiibtinimo naga dhexaysaa isla joognaa taasaa marka tusaalaha kuugu dhowaa صاحب عليكم عاد وما تسنتين عاد وما تسنتين صاحب أول بقوها يعني wiilka laga ciyaaro tiimkayga tiimo shoosh dhankiisa laga ciyaaro dhammaantiin walaalayaal baa mahadsantiin dhanka wiilka laga ciyaaro ninka mahadsan dhanka wiilka laga ciyaaro بروفيل كي يتيكو يساريه توكي dhanka wiilka laga ciyaaro صح هذه الحاجتين كم كنا دaawanaysaa shan kuna ku daawanaysaan tobankiina kuna min hal dollar tobankiina kuna min hal dollar hal qof intuu wax diri lahaa ama lacag badan laga sugi lahaa tobankiina kun min hal dollar والله واتمنى $10 أصلاً ما كفر عيسى. مركا هذا almost تبغى من challenge مجرو without challenge يجرو. قعنت وين خطة كنا كبدي. طبعاً قعنا من بقول كنا العكس عنا أتهاي. فأنت almost 1 مليون. marka caawa halkaas min aan fino oo qolka socod laban filadan waa diinaya insha Allah waxbana ka halaaban maayaan laakiin bal wuxuu capsule iyo diskiisa wixii qolka caawa meeshida kala tago wixii kalena oo official weyn qolka socod la fila gangi ee qolka dhalinyarada Soomaalida lagu caawiyo especially Amal Rashid oo timaaday marka صح هذه أقول ما هتصنتها غير بستاجي أجيب وجسة صاحبات بقول ما هتصنتها غير بالضمان كان يبيع على صاحب عليه كان عاد هو ما هتصنتين أول شيء اللي موجود يكره لما أنت بنزوج ولا مهمة يا صاحب يا سمعنا هذا إلا أن هي لو بهنا بعيد موديل هذه أقول ما هتصنتين صاحب يا لما أنت مرة بتشوفها مرمض عليكم هذا صح أنا شوف إن هذا وين Soomaaliyeed special Puntland shan sano ka hor dhabarku ka jabay yani dhabarka daraa ugu jiraan qalliin uu galo rabaa waxbana ma haysto family support gareyna ma jirto wiil dhalinyaro marka hal support gareeyo hala support gareeyo baa wiilkan على صبر كده على صبر عصب عصب وما سنت نادر كلمة هذا ما سنت عصب كوينات هاي بقرات هاي لا هي ماشى كصوب حسن ما الخير خطأ أو محكو نكس إلى كوجو بدله يرشى مالي وما لما ده كوينات هاي أمريكا الله راجيو واحد ناس تقفي عن الله كذا بيجي هذا أبا ما تستنى معه marka kala sabab challenge يلا إن شاء الله صاحبي هذه يقول الله تيجي challenge يفرع من إنه يدون عوالك عيب شيء ومنتي صاحب عدد التيم كان من إنه يدون عوالك عيب شيء من يراد قلبه نفس بعض ما هتسلك صاحب علي مثل هذا تكره أطيب مقلص عن خليها مقلع ما أنا بقول أنا أرجع مع سنة ونيو مع سنة دي واحد أنا صاحب شخص كملهن جست وواحد كلام وفي هذا الله سبحانه وتعالى هو ما حد مقف
صاحب الله يمهد علمي أنا بيتي. عادي الله متقنا صاحب الله يجيب شرف بعد الله يحب. صاحب لا صاحب عافمات سبحان الله لا أوف مقطعي على هاي ما تفعل معلم إن أنا بالسوشيال ميديا أما معلم إن شو يستاهله لكن حالة إن كانت المدرسة فرسانة قفنا المرأة ومتقنا بأي شقي سنة اللي شقتك لها ويسكلها إدوال ببلها ربنا أدونك الله صالح حق حنوك إلا إلا دريمسان إدن بكمدين إدن مجدين إدن ولدي وحلو مجيسين يعني هي متقنا ربنا أقول الله ما تعرفت تشربان عد بعض المسيبة نقول الله وخلط مالين وكذا لكن من بنيرو كل لكن تشربان عامل مثل ما كان الله شبه أصوات بحياه شقي سنة ونمشي سنة راعي أنا ساعات قدر بعض العواي يروح رب أمرنا بسيط ما أنا فهم ساسو عيد حي وأنا قسم رأي إلا حتى وقتنا لما تشوفنا وقسم رأي ممكن وايو بانو قسم رأي ما تهلك اسمع رسول الله ما له marka saaxiibayaal qof dhibaatada ku soo maray aan ahay qof ka boodsan leeyahay qof diidan leeyahay qof shantiisa waqti tukada cilmigiisa aan ahay wixii waajib loogu lahaa guta waxaan u malaynayaa halkaa waxaan kusoo gaaray waxay tahay iimaankeyga iyo samirkeyga inay maalin nolosha isbedeli doonto waxaana rajaynayaa waqtigii ay isbedeli lahayd nolosha inay caawa ka bilaabato jabroodina way maqlaysaan filaya insha allah biidnillaahi kariim adduun waa la helaa waana la waayaa qofku intuu dhalinyarada yahay oo mataqaanaa caafimaad qabo uu shaqaysanayo nolosha wallahi ana wax ka badan waayo nolosha qofna kuma dhashay isagoo hantiila ah qof kastaa wuxuu dhashay isagoo qaawan oo mataqaanaa maro lagu duubo isla maradaas isagoo lagu duuban qabri baa laga geeyaa wuxuu shaqaystay hadduu shaqaystay milyaneer ahaa iyo haddaanu shaqaysan mataqaanaa qof fakhriya baa ahaaba laakiin labadaba adigoo qaawanna waa dhalanaysaa adigoo qaawanna qabri baa laga geeyaa oo kafan yar loogu duubo cidi ku raaci mayso hantida aad shaqaysatana ku raaci mayso ilmaha aad dhashay hadday fara badan yihiin hadday yaryihiin midna ku raaci maayo adiga iyo camalkaaga inta laisku kinkiido waa halka aad gelaysan hadduu wanaagsanaa iyo hadduu xumaaba marka nolosha laakiin intaa aad nooshahay waa inaad u tabcato ood u shaqaysataa si aad u noqoto qof sharaf loo noqoto biniaadamka bulshada dhexdeeda lagu qiimeeyo amaal rashiid inaad ramaasan tahay amaal rashiid sharaf iyo karaamo dhammaan inta dhalinyaro oo ciyaartay oo u horeysa jamaal yare sanyorita ar khatumawi mrs felis dhalinyaro aad u mahadsantihiin meesha kasoo bixiseen meel ka khayr badan ilaahay idinku bedelo waana arrin wanaagsan marka bowe